wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowladda Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ku qabatay kulan lagu ansixinayay hagaha maareynta qashinka adag. Shirkan wadatashiga oo maanta lagu ansixinayay hagaha maareynta qashinka adag ayaa waxa goobjoog ahaa madaxa xasilinta ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Jubbaland, mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Jubbada Hoose, kan degmada Kismaayo, iyo mas'uuliyiinta kambaniyada maareeya qashinka degmada Kismaayo. Kulankan ayaa waxa ka hadlay madaxa xasilinta ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Jubbaland Xaaji Cabdiwaaxid Xaaji oo madasha ka sheegay inay muhiim tahay ansixinta kulanka lagu ansixinayo hagaha maareynta qashinka adag. sharcigan kaliya ma quseeyo degmada Kismaayo, waa haga loo hagaajinayo inuu ka dhaqan galo guud ahaan meel walba oo dowladda Jubbaland ay ka taliso degmo ilaa heer tuulo ayaa looga baahan yahay. marka dhaqangalkeeda ma aha Kismaayo kaliya inuu ku koobnaado, wada tashigana maadaama de goobtii oo hadda si ku meel gaar lagu shaqeynayo caasimadda Jubbaland ee Kismaayo tahay, sida ayaa muxuu ahaa idinka soo qayb galiyay. marka waxaan rajeynayaa xalay iyo shalay inaad sharciga laga diray aad si fiican u soo akhriseen, maantana inaan ansixinaan rabnaa haddii la yiraahdo. waxaa la ansixinayaana waxa aad akhrisay oo aad fahantay oo su'aalo kala duwan oo maskaxdaada ka guuxay aad weydiisay kadibna aad fahantay inuu noqdaa ugu muhiimsan. intiina kalena kama tarjumayo, waxaan marsiin doonaa meelo kala duwan ayaa marsiin doonaa, fikirro kala duwan ayaa lagu dari doonaa. marka kadib ayaa la dhaqan gelin doonaa insha Allah tacaala, iyo degmooyinkana dhaqan gelin doonaan. marka maanta waxay ka bilowdaa haddii la ansixiyo hagahan aan maanta meesha u fadhino, aan dareemayay intiina yaroo lidin soo xushay inaad maaragtay ka qayb gashin culays weyn aad u qaadeen dadka reer Jubbaland, maxaa yeelay idinka ayaa lidin xushay inaad tafactirtiin fiirisiin dib u eegisna ku suubisiin.